Saaxiibo Faasiqiin ah Qiso Murugo badan. Laba nin ayaa saaxiib ahaa oo la kala odhan jiray Anas iyo Ahmed. Waxay ku saaxiibeen macaasida iyo xumaanta. Xumaan kasta way samayn jireen habeen iyo maalin waqtigii ay is helaan. Habeen ka mid ah habeenada ayaa Anas ku yidhi saaxiibkii Saaxiib, waxaan doonayaa inaan Iimaamka masaajidkaasi tukiya aan xaaskiisa qiyaameeyo. Laakiin waxaan ka baqayaa anigoo gurigii ku jira inuu igu soo galo oo igu yimaado gurigii. Markaas waxaan kaa codsanayaa inaad masjidka tagto oo wadaadkaasi marka uu dhammeeyo salaada cishaha aad la fadhiisato oo iga mashquuliso. Marka uu u soo baxo xagga gurigiisa, telefoon ii soo dir si aan uga tago gurigiisa oonu igu soo gaadhin. Sidii ayuu yeelay Ahmed. Habeen kasta wuxuu la fadhiisan jiray sheekha oo uu mashquulin jiray sidii nin su'aalo diini ah weydiinayo. Muddo markii ninkii uu mashquulinayay sheekhii ayuu maalin dambe qalbigiisa Ilaahay hidaayad ku tuuray. Ilaah ayaa qalbigii nooleeyay. Intaas markii ay dhacday, wuxuu u sheegay sheekhii sheekadii oo dhammaystiran. Waxaanu u sheegay in gurigiisa nin uu daba maro oo gabadhiisuna qiyaamayso oo nin la yidhaahdo Anas ay soo dhawayso. Inta uu salaada tukanayo uu halkaas la joogo, sheekhii ayaa yidhi, saaxiib raalli ahow, aniga xaas ma balihi ma taqaanaa Anas xaafadda iyo gabadha uu qiyaamaynayo tay ahayd. Waxay ahayd Ahmed gabadhiisa. Saaxiibkii ayuu u daba maray gurigiisa oo qiyaamaynayay. Xadiis ayuu nebigeenu ku yidhi, qofkii daalim kaalmeeya isaga lagu salidaa. Qisadani waxay inoo sheegaysaa haddaad la saaxiibto qaayin ama caasi, adiga ayaa dhabaradiisu kugu maqan yihiin. Qof walbo ka fiirso ciddaa la saaxiibayso.